gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu oo safar shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ayaa waxa uu booqasho ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale idaacadda ku hadasha codka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. gudoomiye injineeriisu ayaa waxa xarunta wasaaradda ku soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Xasan Cabdi Maxamed. soo dhaweynta kadib ayaa mas'uuliyiintan waxay qayb u kormeereen xafiisyada kala duwan oo ay ku howlgalaan xarumahani wasaaradda iyo idaacadda, iyadoo maamulka wasaaradda iyo maamulka idaacadda ay warbixino kala duwan oo ku saabsan marxaladihii kala duwan oo ay soo mareen siiyay duqa magaalada Muqdisho. intaa kadib ayaa gudoomiye injineeriisu waxa uu booqday istuudiyaha leefka ee idaacadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo si toos ah ula hadlay shacabweynaha magaalada Baydhabo waxaana uu ku ammaanay horumarada kala duwan oo ay sameeyeen. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaa bulshada iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si diiran loo soo dhaweeyey. shalay maraan booqday magaalada aan soo arkay sida magaalada iyo ganacsigeeda iyo horumarka ka jira. booqashada kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Xasan Cabdi Maxamed. soo booqashadaada iyo garashadaada mudane gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa. Baydhabana waa magaalo aad aqoon badan u leedahay, waliba haddaanan khaldanayn dadkeeda xididdo badan aad ku dhex leedahay. wax badanna aad ka soo shaqaysay xilliga berisamaadkii iyo intii lagu jiray burburkii dowlad la'aantana inaad door muhiim ah aad kaga jirtay dadka ka shaqayn jiray, hadday tahay heer wasiir iyo hadday ka heer karo waaweynba inaad ka soo shaqaysay. marka maantana adoo gudoomiyaha gobolka Banaadir inaad Baydhabo timaadid, reer Baydhabo dhan waa kaaga mahadcelinayaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa ugu mahadceliyay madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka magaalada Baydhabo sida diiran ay u soo dhaweeyeen. aad iyo aad ugu mahadcelinaa soo dhaweynta. maanta aan ku soo booqday wasaaraddii iyo idaacaddii Koonfur Galbeedna runtii waa aad bay ii farxad gelinaysaa. aniga bahda warbaahinta ayaan isku tiriyaa, marka in waxaan ogahay muhiimadda ay warbaahinta iyo wacyigelinta bulshadaba leedahay. mudane wasiir aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaa. sidoo kale waa maalintii saddexaad magaalada Baydhabo joogno. shirkii amniga qaranka oo madaxweynuhu shir gudoominayna aan ka soo qayb galnay. eed iyo eed aan ka faraxsanahay inay Baydhabo hakinagada mar kale Baydhabo Janaay magaca iyo wadato web waa magac taariikh fog leh. aad iyo aad noogu faraxsanahay sida haddana bulshada ay sida hagar la'aanta noogu soo dhaweeyeen runtii mid la hilmaami kara ma aha. maraa magaalada soo booqdayna horumarka iyo sida magaalada maalin ka dambaysa horumar u sameynaysana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. dhanka kale odayaasha deegaanka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uga mahadceliyay booqashadiisa magaalada Baydhabo. aan ka faraxsanahay Cabdiraxmaan inuu la kulano, waana inuu wada sheekaysano, waana inuu wada isla fahamno. eed aan ka faraxsanahay. ilaahay idin sheegay waa ilaahay aan ku tuuganahay, xilku ishaay mus ilaahay aan ka ceebayna, ilaahay aan ku tuugana. waa lan siyaasiya, waa lan dalka walbada hanqobadi, lan aqoon-yahanada Soomaali ku mid ah waay, waana lan ma aragtay insha Allah miisaan culus la waay. isu gaargaarka dadkaas odayaalka awal garadka walbala la kulmay in ka mahadnagaana waana aan du'aayana heliyeen ilaahay ma ka eebayo. madaxdana dhamaantiyo safar salaam ilaahay warsadaana. marka Soomaalina ilaahay ma in ku tuugana nabadgeliye. injineer Umar Cabdiraxmaan injineer Yariisow yaa la kulmay yaa eedan ka faraxsana. sidaas dartiye mayba unuun aan ka do'aynay in ilaahay wiinahay waa hatahay helku isahaayo in ilaahay la garab galo, ilaahay in ka aabayna. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baydhabo.